شيخ سائلكم wuxuu leeyahay caanaan iska lisay marka caanihii baan fridge-ka geliyey ninkayga bariis ku cunay xaaskayga oo iga maqan ayaan video call kula sheekaystaa kula raaxaystaa marka qaar anoo xaaskayga macaansanaya iyo shahwadiga imaataa gacan ma isticmaalo ayay imaadaan ma bannaan tahay dabcan su-aasha saas weeye arrintaa may bannaan tahay hawshaan iska wataa بسم الله الحمد لله مسألة طبعا نحر كذا وأنكو عنده حاس كيسة عانه هذا أي علوشي سقلانوي أما تصبح منه أما استغبح الله لسو أما سيدنا وكاليه وإلمان الله لغاية aku khaldamo waxaan filayaa kan oo kale waxa meesha loo geliyay maanta ilmaha tiisida maado maqan hal la siiyay inay lahayd baa laga yaabaa isagana isagoo suxuur ordaya ka dondhacay markaad degdegsan tahayna siyaabahaas oo kale way dhacdaa inaad wax ku khaldanto mara khalada qaadato dad masaajidka salaad subax ka gaadhis leedahay cimaamad meel kurtiinay soo qaadato inaad islaanta garbasaarteedii soo qaadatana way dhici kartaa gaar ahaan hadduu habeenkaa nal ku maqan yahay haddaan nal joogin habeenkaas inaad go-aagii soo qaada tiraadoo kii xaaska soo qaadatana masaajka dhexdiisoo lagu arkana waa dhici kartaa ina dhici jirtay waagi hore islaanta garbasaarteeda intuu duubto subaxii markii qur-aanka cabaar la akhristo la yidhaha warhebe waxaad duuqantahay maxaa wahay la yidhaahdeen wuu khaldami karaa qofku degdegaa iyo xilligaa duruufta wax dhici kara muhiimaddu maxay isugu tegaysaa caanihiibaa calooshiisa galay hooye muu noqonaysaa dhowr mas'alaa saamaynaysa masalada koowaad ee saamaynaysaay masalatu ridaaci alkabiir la yidhaahda way qof weyn 2 sano qof ka weyn haddii la nuujiyo sidii ilmihii ka yaraa ee la nuujiyey ma noqonayaa daahirka agarka nusuustu waa maya qur-aanku wuxuu yidhi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca nuugu qofka inuu dhammaystira waktigeeda rabo anaa waktigeeda hadduu dhammaaday maxaa ka dambeeya kadib waktigeedii ma aha waxaa ka mida nabigu inuu yidhi inama ridaacu maa kaana fi lxawleyn maa fataqa alamcaa wa kaana fi lxawleyn wixii ilmaha xididadiisa iyo xidmihiisa kobciya 2 sano gudahoodna ah baa nuujin la yidhaahdaa kadib mawlaa saalim mawlaa xudayfa ma qiso khaas ahoo duruuf gaaray ahayd mise wixii lamida oo daruuro ay timaadaa looga qiyaasan kii la yidhaahdaba ninkan oo kale daruuro ma ahayn saalim mawlaa xudayfana ma ahayn khaas baa haddii la yidhaahdo labada qowl ahlulcilmigana midna ku dabaqmi mayso masalo labaad oo u gudbi waxaa weeye gabadhu hal mar bay sheegtay nuugmaduna 5 jeer baa ugu yar 5 radacaatin macluumaatin yuxarimna 5 jeer oo kala duwan waa inay dhacdaa haddana hal mar unbay sheegtay nin beriis ku darsadee hal mar wax ma xaaraantinimayso haddii 5tiiba ay noqoto ridaacu lkabiirna waa la ogol yahay aan dhahno waxaa imanaysa ninku allabanu labanuhu caanuhu caanihiisii wey ilmuhu markuu hooyo yeesho aabbihii caanahan irmaaneeyeyna aabbuu u noqonaya isaga ma aabbays u noqonaya wey marka intaasoo dhan marka la eegaay sida saxdihii hooyadii ugu noqon maysa laakiin ilmaha ka dhammaysanni maan dhihi lahaa horta baabka ragga iyo dumarka ku saabsan bini aadamka meel weyn buu kaga yaalaa saas darteed marka la sheego attentionka oo dhan buu soo jeedsadaa kii meel ka fikirayay kii wax akrinayay kii hurdaysnaa kii daalana xataa kii sii baxay uu istaagayaa baashan shahwada bini aadamka
xooggay ku haysatay suu u afduuban yahay baad garan. waxa keliya ee marka la sheego yar iyo weyn, rag iyo dumar, la wada qoslana waa iyada. wax rag iyo dumar ku saabsan markay dadku xajisaan waxaa la dhahaa war su-aal dhan halkaasa ku dara, dadka oo dhan baa cajiska ka kacay. halkaa waxaad ka garanaysaa nabigu markuu leeyahay dadka laba qofka ii ballan qaada, jannaan u ballan qaadi, afkiisaas iyo farjigiisa aan dembi ka ilaaliya qofka ii ballan qaada, jannaan u ballan qaadi. dadkana naarta wax u badan ee geliya waa afka iyo farjiga. baad garanaysaa farjiga shahwada bini aadamka saamaynta ay ku leedahay inta uu dhan yahay iyo maskaxdiisa say uga adag tahay ee ugu afduubaya uga xoog badan tahay. halkaasaad ka garan. saas darteed hadda cajiskiina waa baxay, dadkii oo dhanna waa soo wada jeedsadeen. su-aashan jawaabteeda sida loogu soo jeedana kuwa badan oo kale looguma soo jeedin. dadka meel baa la iska taabtayoo dadka fiila ku wada dhegtay marka koronta meel ka wada haysato ku wada dhegtay. ninka waxaan dhihi lahaa laba arrimoodba. waa marka koowaade keligiin ma tihiinoo horta ogow. markaad video call galaysaan waxaad maraysaan ab ay dad samaysteen ay maamulaan. telegram dhe, whatsapp dhe, facebook dhe. programkan dad baa leh oo maamusha, waxaana mamnuuca, waxaana sii daaya. ama markaasba ha noqoto kormeer iyo inaad qolyo fiirinaya la kulanto, ama ha dhowra dib dulmarka inaad kala kulantee. dad badan oo faylashooda waa la soo qarxiye luqa la yidhahdo loo isticmaalo soomaydaan arag. horta ogaada adiga xaaskaaga keliya ma tihiine cidda aad abkooda isticmaalaysaan iyo shaqaalahooda way idinla joogaan. keligiin isma tihiin. adigu sax qof maadan kusoo darin, iyaduna qof mayna kusoo darin meesha, laakiin meel dhaxaad isu sii maraysaan oo la joogo. codka iyo hadda codadka waa la isdhegaystaa sooma, fideoyadana waa la isdaawadaa. horta taa waa inaad fahanto markaad wax samaynayso iyo sawiradan iyo fideoyadan aad duubayso keligiin ma tihiin. waa dhici kartaa berri iyagoo baraha bulshada ordaya inaad aragto, waa dhici kartaa. ninka xaaskiisu waxaa muhimkiihi ninka xaaskiisa haddii istimnihii iyo siigaysigii la yidhi lama ogolo ha la iska daayo, ma ku jiraa midka xaaskiisa uu la sameeyo ma ku jiraa? maya. ninka iyo xaaskiisa xiriirka dhex maraayo ee shahwada biyuhu ku yimaadaan galmo keliya ma aha. marar bayba gabadhu macduurta. saa darteed erayo badan bay isticmaalaan, mufaakhaday isticmaalaan, siyaabo badan ba ama gacanteeda ha noqoto ama jirkeeda meel kaleoo kamida ha noqoto. ninku intay xiriir sameeyaan oo jirkooda isgaaro oo istaataabtaan bay biyuhu iman karaan, dhib ma laha. haddii waxan uu dhex marayo dhib uma laha inay isagii xaaskiisii yihiin. inuu jirkeeda taabto ama uu arkana dhib ma laha. in iyada jirkeedii uu arkay ama uu taabtay biyo shahwo kaga yimaadeenna dhib ma laha. laakiin qolyahan dhexda fadhiya uun iska ilaali. bilahi towfiiq.